بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan waan idin salaamay salaan qalbiga ka imaatay. meeshaan aad iga fiirsanaysaan waa Aamina Shiiquna Channel, anigana waa Aamina Shiiquna. walaalayaal haddii aad tahay dadkii horey noola joogay waxaan kaaga mahad celinayaa la joogitaankaaga. fadlan muuqaalka like noo saar insha allah. haddii aad ka mid tahay asxaabta cusubna fadlan nagu soo biir. maanta waxaan idin wadaa qiso aad iyo aad u faa'iido badan oo taasoo adduun iyo aakhiraba waxna tari doonto oo waxna nolosheena ka bedeli doonto biidni illaah. qofkii hore u sameynayna arrinkaas waxaan leeyahay mabruuq caleyki ama mabruuq caleyk aan leeyahay. yaa hanii'an lak yaa man yaqra' suurat albaqara. yaa waxaan leeyahay asxaabta suurat albaqara akhrisa xaasnimada iska daysaan faa'iidada suurat albaqara dadka la soo wadaaga. ma fahanteen? haddaa idinka xataa kaamirada soo fadhiisan karin waa laidinka soo gudbinaa. marka soo sheega fadlan suurat albaqara faa'iidada ay leedahay ummadda ha lagu soo baraarujiyo. maanta waxaan idin wadaa suurat albaqara. yaan garanaynin qofna suurat albaqara faa'iidada ay leedahay dad aan garanaynin maanta way yartahay. maxaa yeelay social media yaalo. waa laga yaabaa dadka badanaa inaysan wada garanaynin. waa dad badanoo garanayna way jira aan aqrinaynin. maanta mawduuceena labaan u kala qaadi doonaa insha allah. waxaan u kala qaadi doonaa dadka suuratulbaqara yaqaano iyo dadka aanan aqoonin insha allah. haddii uu videoga ila dheeraado qofka aan garanaynin suuratulbaqara waxaan usoo sameynaa video kaasoo aniga aamina ahaan aan uga hadli doono sabab sidii aan ku bartay suuratulbaqara. laakiin maanta waxaan saaraynaa mawduuceena waxaan saaraynaa tooshka ku ifinaynaa faa'iidada ay leedahay suuratulbaqara insha allah. aan maanta faa'iidadeena faa'iidadan ka hadli doonaa insha allah haddii ilaah kala noqdo. waxaan la hadlaa maanta karbaashka maanta waxaa ku socdaa dadka suuratulbaqara yaqaano aanan aqrinaynin. dad badan way is yaqaanaan way is ogyihiin. dadkaasaa la jafooyaa maanta. dad kalena kulli aanan garanaynin way jiraan ani aanan ka sayno suuratulbaqara yaqaano badan. insha allah waxay u noqon doontaa dhiirigelin inay hurdada ka kacaan. waxaa laga yaabaa inaad dhibaato fara badan aad ka tabanaysid. waxyaabaha aad aad rajaynaysid amalka horta gadaal aan dhigano. lianna wax walba waxaa ka daran dhibaato aad la nooshahay oo u baahan xalkiinuu gacantaada ku jiro laakiin aad isticmaalaynin. nasiib daro ma aho taas. nasiib daro weyn waayo. marka walaalayaal maanta waxaan jeclaystay si qalbiyan ah inaan idin baraarujiyo suuratulbaqara aan idin xasuusiyo. dadka yaqaano suuratulbaqara inaan xasuusitiin faa'iidooyinka ay leedahay. anna wax yar aan idinkaga taabana wax yar faa'iidada aniga aan ka helay suuratulbaqara lianno ma la soo koobi karo ama lama soo koobi karo insha allah. waxaan ku bilaabaynaa biidni illaahi ilbaari. maanta adduunyada la joogo xaasidkaa ku batay, xumaantaa ku badatay. wallaahi bilaahi gabdhaha horta ugu badan dhibaatada xawalay waa isnaqaanaa. dhibaatooyinka ugu badan maanta annagayna haysata. annagaan ugu baahi badan inaan suuratulbaqara maanta akhrino. sidoo kale wiilasha wax xasasku ku xun yihiin ama caruurta ka xun yihiin ama guurka ka xumaaday ayagana waan kula talinaa inay suuratulbaqara akhriyaan. haddii aad shaqo rajaynaysid oo aad ku riyoonaysid shaqo suuratulbaqara inaad akhrisid. haddii uu xanuunku haayo ama sixir ha ahaado ama il ha ahaado ama cudur kaloo jismiga ha ahaado waxaan kugula talinaa inaad suuratulbaqara akhrisid lianno daawadeeda waa suuratulbaqara. dhibaato walboo ku haysato ilaahay subxaanahu watacaala wuu kaaga qaadi karaa suuratulbaqara waana kaaga qaadaya lianno rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay fa ina akhdahaa baraka wa tarkuhaa xasara walaa yastadiicuha albatala. laba arrinoon aniga la noolaada idinkaga sheekeynaa maanta. akhdahaa baraka waan la noolaaday haddaan la noolay alxamdulilah. wa tarkuhaa xasarana waan la soo noolaadayo waxay ahayd noloshayda intaanan suuratulbaqara akrinaynin waxaa igu dhacay dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan. wax walboon gacan u qaadana waan ku fashilmi jiray. aniga alxamdulilah ilaahay wuxuu iga dhigay oo macnaha isiiyey faham dheer uu ilaahay isiiyey alxamdulilah. waxaan ahay qof wax xifdiska ku fiican, fahamka ku fiican, hadalka ku fiican maasha allah. ma aragtay oo qaladkana diidi karo wixii saxana dhihi karo waa okay aan ahaa.
alxamdulilah ilaa haddana waan ahay. marka waxaa dhacday dhibaatooyin gabadheed yartaa oynaysa waxawaya gabadhiina waa insha allah. marka waxaa dhacday marka waxaan idinkugu hormarayaa dhibaatooyinkii igu dhacay intaana suuratulbaqara aqrin jirin ka hor. walaalayaal aniga dad bay dhibaateeyey oo sixir oo yani oo aad iyo aad iyo aad u xun ayaa maaragtay ii sameeyey. hal ma aha, laba ma aha, saddex ma aha, intii qof ibni aadan lagu dhibaateyn karo ama maaragtay diinta in la iga saaro, aan dhinto oo aan waasho oo awlaadeyda iyo qof aniga wax ii aanan dib usoo wareysanin ayaa la iigu talagalay. laakiin meesha la iigu tashanayay allah raxmaanka ahaa joogay. aniga maba aqoonin ruqyo iyo waxaas iyo suuratulbaqara faa'iidaday leedahay wallaahi billah inaanan aqoonin. maanta maxaan u sheegaa lianno maalinkaas xanuunkaas igu dhacayay faa'iidada suuratulbaqara ay leedahay haddaan ogahay isla markii waan aqrisa lahaa, laakiin ma aqoonin, qofna ilama wadaagin. sidaas darteedaan idinla wadaagaa maanta ee arrintan qaaliga ah ee ma aragta qofka ibni aadamka caafimaadkiisa wuxuu siisanaya wax allaali wuxuu haayo uu siisanaya. ma fahantay? haddii xataa tusaale ahaan lagu dhaho kelidaa ku xanuunaysee xibintaada ka mid a gad si kelida lagaaga daaweeyo waa ogolaanaysaa. maanta arrinkaa idinla wadaagayo wax lacag ah la idinkagama rabo. waxaan idin sheegayaa meeshaan usoo fadhiistay xanuunkii aniga igu dhacay qofna aanan ogeynaa idinla wadaagayaa waxay tahay walaalayaal waxaan rabaa ummado kale, gabdho kale ama walaalo kale dhibaataysan oo dhibaatadii maalintaasi soo martay la nool inay jiraana laga yaabaa. sidaas darteeda idinla wadaagaa. fadlan waxaan idinka codsanayaa muuqaalkan inaad laayig badan oo badan siisaan si dad badan oo u gaaro. fadlan sheer gareeya, guruubyada aad ku jirtaan ku sheer gareeya. anigana ajiray ii tahay adduuni aakhiraan ka faa'iidaa, idinkana ajira idinta adduuni aakhiraan ku faa'iidaysan biidni illaahi albaari. maxaa yeele qofkan maalin shay ka faa'iidaysto waan u duceeyaa. aniga waxaan ka faa'iidaystay qof suuratulbaqara akhriskeeda inaan suuratulbaqara isku daaweeyo, qof baan ka faa'iiday. ajirkaasna maanta asagu u socdaa leyl wanahaarna u duceeya qofkaas. waa xanuunsaday, xanuun aad u daranaa igu dhacay. markuu igu dhacay ruqyaan iska dhagaysan jiray, waan ku caafimaaday ruqyadii, laakiin weli xanuunkii waa isii haayay. xanuunkii wuu isii haayay, wuu joogay. kadib walaalayaal waxaa dhacday dee qof xanuunsanaa tahay maalin kasta daawa raadinaysaa. qadka inaan galay maalin maalmaha ka mid ah oon dhahay maxaa lagu daaweeyaa waxaas. waxaan dhagaystay shiiq dhahaayo suuratulbaqara qiimahay leedahay ama faa'iidooyinkay u leedahay qofka cuduradaas ku dhaco ama guud ahaan nolosha oo dhan. wuxuu yidhi shiiqaas waxaad akhrisaa suuratulbaqara, markaad akhriso biyo ku tufo, cab, ku qubayso, ama maalin kasta suuratulbaqara aqri. ay aamino waaye suuratulbaqara may kugu taqaanaa? maya. see lagu aqrina? dad badanaan baryay oon dhahay suuratulbaqara igu tafa ama ii aqriya, laakiin waa waayey. dadkaasuu ahaay dad qur'aan yaqaano, fursadaa la ii waayey. aniga maanta aniga haddii uu igu yiraahdo qof walaala kaalay suuratulbaqara iyo aqri ama igu aqri, anigoo faraxsan ordaaya aan wallahi bilaa u aqrina. lianno dhibaatada xanuunkaas uu leeyahay anaa soo maray, qofkii soo mara ogaan karo. ma fahantay? bal dad aan iga codsanin aan kula taliyaa ama aan u aqriyaa oo aan idhaahdo war suuratulbaqara ma kugu tufaa kaali ka faa'iidayso. maanta suuratulbaqara waxaan aqriyaa maalin walbo. arrinkaas arrin sir ahoo ii ahay, mana jecli waxyaabaha faa'iidadii ii ah inaan si yacni oo caadi uga sheekeeyo. laakiin waxaan uga sheekaynaa arrinkaas wuxuu yahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay naftaada waxaad la jeceshahay nafka la jeclaaw, walaalkaaga naftiisa la jeclaaw. sidaas darteedaan walaalayaal idinla wadaagaa faa'iidada suuratulbaqara. waxaan ka helay suuratulbaqara caafimaad. markaan ruqyadii isku aqrin jiray oon caafimaadkay wali dhammaystirmin, waxyaabaha igu sii dambeeyey waxaa ka mid ahaa walaalayaal cabsi, qalqal iyo cabsi. ma joogi karin keligayga meel. dhibaato igu ahayd inaan guri keligayga joogo, waayo waxaa igu dhici jiray mar allaali markaan keligayga noqdo waxyaabo badana isoo weerari jiray. oo dhibaatada ugu weynoo aniga i haysatay waxay ahayd diinta inaan ka baxo ayay igula dagaalami jireen shayaadiinta. falilaahi alxamdu walmanna, ilaahay subxaanahu watacaala waa isugay. anigana waxaan ku ducaysan jiray leyl wa nahaar dhinacayga haddaan soo gadisto allaahumma innii as'aluka iimaanan laa yartad wa naciiman laa yanfad wa muraafaqati muxammadin sala allahu calayhi wasalam. wallaahi alcadiim
dacooyinka iimaankii adkeynaya aadan ugu dadaali jiray salaado badanaan la imaan jiray soon badanaan la imaaday marxaladii sixirka u igaarsiyay aniga marxalad laga soo noqdo ma ahayn laakiin waxaan ahay qof raxmadda ilaahay ku dhacdaanahay sidaas darteedaan idinla wadaagaya maanta ilaahay waxaan uga baryaa qof walboo xanuunsan inuu xanuunka ka qaado waxaa doqonnimo ah adigoo suuratulbaqri yaqaana in aad maanta la cabato ka oyso maaragtay xanuunaha qaarkooda walaalayaal baraaruga suuratulbaqra aqriya kitaabka kala fura daawada gacmihiina ay ku jirtaa sheekba sheekh ha ku dul wareegina idinka isdaaweeya suuratulbaqra markaan bilaabo inaan aqriyo waxaa dhacday cabsidii oo dhan inay iga tagtay waxaa dhacday noloshayda inaa caadi u noqon waxaa dhacday caruurtayda la igala dagaalami jiray inaan la hadlo caruurtaydii jaceylkoodii iyo wax walba inay iisoo noqdaan oo familkaygii aan teleefoonka ka qabto teleefon ma qaban jirin familkaygu way ogyihiin dadka oo dhan way iga quustay ilaa dad yar ma ahani teleefon ma qaban jirin waxay ii maleeyaan waxaa la leeyahay tii yurub ay tagtee way kibirtay ilaa wadaa og yurub dhibaatada taalo kibir ma yaalee qofkiina hadduu teleefon idinka qaban waay markaa yurub uu imaado war waa jiran yahay qofka yalla aadino quraan loo soo aqriyo ani intaas iga tale ah qofkii caafimaad qabo markuu yurub imaado xataa qofkaas sixir uu heenin waxa uu la kulmaa dhibaatooyin fara badan uu la kulmaa oo ah yacni xaaladuu ka soo baxay iyo xaaladuu soo galay wixii uu rabay uu raadinayay iyo wuxuu la kulmay waa kaaf ii kala dheeri sidaas darteed qofka insaanka ah ma xamili karo waxaa ku dhacaysa dhibaatooyin fara badan oo qalbiyana ku dhacayso waa xaqiiqo jirta soomaalida cudurka qalbiga ku dhaca ma jecla in laga hadlo laakiin xaqiiqo jirta waa dhibaatada ku haysata meesha doontaa ka imaato ama sixir ha ahaado ama depression ha ahaado wuxuu doon ha ahaado waxaad uga baxaysaa xanuunadaas oo dhan suuratulbaqra akhriskeeda biidni illaahi ilbaari aniga ilaahay waa igu guulaysiiyey waxaa ilaahay ku hagaajiyey akhlaaqdayda wuxuu ilaahay ku hagaajiyey suuratulbaqra iimaankayda wuxuu ilaahay ku hagaajiyey noloshayda suuratulbaqra maalinkan bilaawday inaan aqriyo maalin kasto waxaa dhacday tallaabo meeshaan u qaado inay noqoto meel aan ku guulaysto guuldaro waxaa iigu dambeysay suuratulbaqra markaan aqriyey oo aan bilaabo inaan aqriyo ma aha maalin in laba ina aqrisid suuratulbaqra waxaad ka dhigataa noloshaada biyaha aad cabaysid oo kale ka dhiga suuratulbaqra kaniini aadan ka maarmin ka dhiga suuratulbaqra waxaad ka dhigataa wehel ka dhiga suuratulbaqra yacni xasradii suuratulbaqra intaanan soo aqrinaynin waan idinkaga soo sheekeeyey waa dhibaatadii iyo sixirkii igu dhacay iyo xaaladihii iyo marxaladihii aan soo maray barakadeedana waa tan hadda idinkaga sheekeynayo guud ahaan waa idin dulmaray suuratulbaqra waxyaabaha aan ka dheefay waxaan ka dheefay guul fara badan qalbigoo dega naxariis go-aan wanaagsan oo adkaysiyaan ka helay iimaanaan ka helay akhlaaq wanaagsan hanuunaan ka helay bale suuratulbaqra markaan bilaabo inaan aqriyo waxaa ii furmay qur-aankii kale aniga markaan imaanaya yurub qur-aan ma aqoonin ilaa itabaarak bes aan garanayay oo weliba intaasba aan si fiican loo kasayno kitaabka laga aqrin karo laakiin markii aan xanuunsaday oo suuratulbaqra inaan aqriyo ku qasbanaaday maxaa dhacday in ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa oo dhan uu ii furo waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah annagoo meel gabdho wada joogno waagan safarka usoo ahaa yurub gabaraa waxay ku aqri cod macaan ilaahaysi xaafidada ahayd waxay aqrinaysaa suuratulmaryama suuratu yaasiin markaan maqla waxaan iri matale meel maa ka shiday mise adaa aqrinoy waxay tiri anaa aqrinoy waan u qaadan waayay waxaan iri walaalay waa ku baryaa ii aqri suuratulmaryama ii aqri adduunka waxay ila ahayd qof suuratulmaryama aqrinaayo bismillaahi araxmaani araxiim intou gaaray qofkaas laakiin maanta maxaa dhacday kitaabka inaan sastaa u furo faatixa ilaa ibirabinnaas saas inta ugala saas uga soo baxo ilaaha iskale fadligaas wuxuu ku ahaaday suuratulbaqara barakadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam sheegaya waa tanaa waxaa kuu furmaayo waxyaabo fara badan oo aniga sir ii ah oo ii qaas ahna waan ku helay oo aan rabin inaan ka sheekeeyo laakiin waxaa idin sheegaa guud ahaan noloshayda inay isku bedeshay ay noqotay habeen iyo maalin bal waxaan gaaray aan idhaahdo maba noolaynba suuratulbaqara horteeda aniga maba ahaynba qof nool maba ahaynba qof jira
haddaan noolaaday haddaan noolahay ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaa inaan sidaas usii aqriyo suuratulbaqra intaan ka dhimanayo qabriga ka galaayo ilaahayna uu igu anfaco idinkana sidoo kale waxaan u hambalyaynaa sidoo kale dadka suuratulbaqra aqriya waxaan baraarujinaa dadka aan suuratulbaqra aqrinin walaalayaal sariiraha ha ku laabnaanina caajiska wuu idinka ba'a awlaadiina waxa u qabsanaysiin noloshiina way hagaagaysaa haddii aad zawj saalixa rabtida guurka ka daahday walaashay waxaad aqrisaa suuratulbaqra walaalkii adigana sidoo kale taadi kalena suurtagal yay noqonin adigoon saalix ahayn inaad qof saalixa raadisid macquul ma aha noloshaada marka hore hagaaji waxyaabaha noloshaada ay ku hagaagaysana waxaa ka mid ah aqriska suuratulbaqra waxaan rabaa inaad ka faa'iidaysataan videogan ilaahay subxaanahu watacaalana uu idin waafajiyo aqriska suuratulbaqra waxaan idinkaga soo sheekeyn doonaa videoga xigo suuratulbaqra sidii aan ku bartay insha allah iyo waxyaabihii igu kalifay hadda waxaan idinkaga sheekeeyey suuratulbaqra waxyaabihii aan ka dheefay iyo aqriska aan aqriyo hadda waxaan aqriyaa maalin walbo suuratulbaqra maalintaan aqrinin ibni aadanaa leeyahay mararka qaar waa laga yaabaa inaadan aqrin hadda waa marar dhif ah markaasoo kalena haafaan ka aqriyaa ama haddaan is iraada allay lehe maanta ilaa iyo habeenkii intaan ka seexana waa rajeynaa inaan aqriyo oon isleeyahay bal hadda aqri hadday ii suurtageli weyso waxaan aqriyaa aayadaha ugu horeeya suuratu aayatul kursi iyo labada aayad ugu dambeysana waxayba ka tahay adkaar ay ka mid tahay adkaaru noom oo waan ku seexdaa oo waan aqristaa insha allah walaalayaal sidoo kale waxaan rabaa inaan maaragtay idinku baraarujiyo suuratulmulk tabaaraka alladii biyadihi lmulk wahuwa calaa kulli shayin qadiir aqriskeeda ayadana insha allah habeenkii marka aad seexanaysaan si aqriya ayadana biidni illaahi ilbaari guud ahaan dikriga ilaahay faa'iidada uu leeyahay waxaan koobi karna ma aha qofkana ilaahaaba yiriba qofka dikriga aqrinaayo oo ilaahay ku xiran wuxuu yahay waa qof nool qofkan ilaahay ku xirneenna waa qof dhintay marka farqiga u dhaxeeyo dikriga ilaahay la noolaashaha dikriga ilaahay iyo inaad ilaahay subxaanahu watacaala u dhawaato iyo inaad ilaahay ka fogaato faqriga u dhaxeeya waxaa waaye waa qof nool iyo qof dhintay ayay labada qof la kala mid yihiin videogu igu dheeraaday insha allah videoga xigaan rabaa inaan uga soo hadlo faa'iidooyinka kaleeto oo suuratulbaqra aan ka helay iyo sidii aan ku bartay lianna waxaan rabaa inaan ku dhiirageliyo walaalaha aan aqoonin suuratulbaqra aniga ma aqaano dhahay aniga kula hadlayo ma aqoonin suuratulbaqro meelaan ka bilaabana ma garanaynin laakiin waan aqriyey oo maanta waxay ila mid tahay suuratulfaatixa indhaha anoo isku haystaan suuratulbaqra aqriyaa maanta suuratulbaqra waxay ii noqotay faatixa oo kale ii noqotay idinkana way idin noqon doontaa waana idinku dhiiragelinayaa qofkii u baahanna waan ka caawinayaa barashada suuratulbaqara insha allah anigoo ilaahay subxaanahu watacaala ajir uga raadsanayo oo rabana walaalahayga muslimiinta ah ee dhibaataysan inaan haddii aan wax un ka caawin karo wax ka caawiyo sidaan hore idinkugu sheegay videoga waxaan rabaa inaad like fara badan saartaan si u dad badan u gaaro oo anna aan uga faa'iidaysto idinkana aad uga faa'iidaystaan walaalaha kalena ay uga faa'iidaystaan biidni illaahi ilbaari maanta videogayga intaasaan kusoo koobayaa walaalayaal dadka suuratulbaqra yaqaanow isjafjafa istaaga waa idin soo duceyna ilaahi subxaanahu watacaala ha idin waafajiya aqriskeeda dhaxdaa xirta maxaa la dhahay shayaadiintan idin xirxiratay oo noloshiina baabi'isay iska celiya waxaa waaye guul ilaahay ka soko iyo gacantaada kaagama horeyso insha allah intaasaan kusoo gabagabaynayaa mar kale aan u mahad celinaya dadkii igu soo biiray idinkana dadka igu cusubna waxaan ka codsanaya inay igu soo biiraan sidoo kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh